sidee baa loola tacaalaa arrintan naaso-bararka iyo danqashada xilliga caadada? Arrintan ma ahan mid wax dhib ah keeni karto, waana wax ka dhashay isbeddelada dabiiciga ah oo qofka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray. Haddii aad isku aragtid astaamahan soo socdo, markaasi waxaad u baahnaani doontaa in aad dhakhtar la xiriirto. Waxaana ka mid ah astaamaha: haddii aad isku aragto wax kuusan oo cusub oo weliba ka soo baxo naaska oo aanan caadada la tegeenin, dheecaan ama qoyaan ka yimaado ibta naaska, naaso xanuun aad ka hurdi la'dahay, amaba saameyn ku yeeshay nolol maalmeedkaadu. Haddii uu xanuunkan aad kuuga daran yahay, fadlan waxaad isticmaali kartaa paracetamol amaba ibuprofen oo weliba xanuun baabiye ah. Waxaa kaloo la ogaaday in cunooyinka ku badan fitamiin E-gu ay yareeyaan danqashada naasaha iyo bararkooda. Waxaana cunooyinkaas ka mid ah looska, koostada, karootada, sabuulka, afakaadhada iyo zaytuunka. Fadlan haddii ay jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan xagga muuqaalkan, noogu reeb kommentiga hoostiisa si aynu kaaga soo jawaabno. Waxaannu idin rajaynayaa dhammaantiinnu khayr iyo caafimaad.